daawadayaal ku soo dhawaada wararkii Warshiil TV qodobada aan idinku hayno warkeena waxa kamid ah dawladda Ingiriiska oo sheegtay inay dhaxdhaxaadin ka galayaan kiiska badda ee Soomaaliya iyo Kenya madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Gaas ayaa maamul goboleedyada ugu baaqay inay iska difaacaan dawladda federaalka waxaad ka ogtahay sababaha uu xaaf uga soo horjeestay dawladda federaalka ee Soomaaliya kooxda macaamiisleyda oo hubo badan ka qabsatay shabaab kadib dagaal culus oo dhaxmaray hay'adda Amnesty International ayaa soo bandhigtay dad shicib oo diyaaradaha Mareykanku ay ku duqeeyeen gudaha Soomaaliya daawadayaal kuwaasi waa qodobada warkeena ugu doorka roon leh haatana ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan safiirka Ingiriiska u fadhiya magaalada Nairobi Jane Marot ayaa shaacisay inay dawladeedu diyaar u tahay inay dhaxdhaxaadiso Soomaaliya iyo Kenya oo haatan dacwad u dhaxaysa ay ka furan tahay maxkamadda ICJ safiirka oo kulan gaar ah la qaatay mas'uuliyiin uu kamid yahay madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya William Ruto ayaa sheegay inay muhiim tahay in wada hadal lagu dhameeyo xiisada labada dal gaar ahaan kiiska badda sidoo kale waxay tilmaantay in kulankii madaxweyne Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta ku dhaxmaray magaalada New York uu wadada u xaareeyay in arrinta wada hadal lagu dhameeyo wada hadalka Kenya iyo Soomaaliya waa muhiim si loo xaliyo arrintan talaabada uu Uhuru Kenyatta kula kulmay madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo magaalada New York waxa ahayd mid muhiim ah oo wadada u xaareysay in arrinta wada hadal lagu dhameeyo ayay tiridan jiraha wadanka Ingiriiska u qaabilsan dalka Kenya dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa hore uga biyadiiday in dacwadda badda lagu dhameeyo si hoose waxaana sheegtay inay ku kalsoon tahay maxkamadda ICJ sidoo kale dhawaan ayay ahayd markii madaxweyne Farmaajo kulankii 47aad ee golaha guud ee qaramada midoobay ka hor sheegay in dawladdiisu ay ku qanacsanaan doonto go'aan kasta oo ay gaadho maxkamadda cadaaladda ee adduunka maxkamadda ayaa lagu wadaa inay dhageysiga dacwaddan ee dib u furto 4 bisha November ee sanadkan 2019 madaxweynihii hore ee maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas waraysi siiyay idaacad maxalli ah oo ku taala magaalada Muqdisho ayaa si kulul uga hadlay khilaafka ka dhaxaloosan qaar kamid ah maamul goboleedyada dalka iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa uu sheegay Gaas in dawladda dhexe ee Soomaaliya laga doonayay inay tixgeliso hanaanka maamul goboleedyada ay ku shaqeeyaan isla markaana ay dardar geliso dhismaha maamulada iyo madaxdooda dhamaysatay waqtigii xilhayntooda Gaas ayaa sheegay in khilaafka dawladda dhexe iyo maamul goboleedyadu badanaa uu ka yimaado dana gaar ah oo dhanka dawladda dhexe ee Soomaaliya isagoona sheegay in arrimaha dastuurka ay baalmaraan madaxda dawladda federaalka ahi sidoo kale madaxweynihii hore ee maamul goboleedka Puntland Cabdiweli Gaas ayaa waxa uu maamul goboleedyada ugu baaqay inay dhistaan madal ay ku midaysan yihiin isla markaana ay ka wada hadlaan xaaladda ka jirta dalka sida waxyaabaha ay isku hayaan madaxda sare ee dawladda federaalka ee Soomaaliya hadalka ka soo yeeray Gaas ayaa ku soo aadaya xilli uu cirkaas ku shiishareeraya khilaafka dawladda dhexe iyo qaar ka tirsan maamul goboleedyada maamulada Jubbaland iyo Puntland ayaan ka qayb galin shirkii caalamiga ah ee madasha iskaashiga Soomaaliya ee ka socday magaalada Muqdisho iyadoo ay weli jirto khilaaf ka dhaxeeya labadan maamul goboleed iyo dawladda federaalka dawladda dhexe ee Soomaaliya ayaa dhowr jeer lagu eedeeyay inay ku tumanayso dastuurka dalka u yaala oo ay awood ciidan u isticmaalayso caburinta maamul goboleedyada madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa dhawaan qoraal uu soo saaray ku sheegay inuu ka laabtay wakiilashadii wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya ee dhameystirka dib u dhiska Galmudug warbaahinta ayaa hadda helaysa sababaha runta ah ee khilaafkan ka soo cusboonaaday madaxweynaha Galmudug iyo dawladda federaalka halka uu salka ku hayo ana la sheegaya in 3 qodob la isku hayo 3 qodob oo kala ah in Xaaf loo diiday dhameystirka lacag lagu heshiiyo oo dhammayd $4 milyan waxaana hore loo siiyay kala bar lacagtaasi waxa kaloo jirta in loo diiday xubno lagu heshiiyay inay ka mid noqdaan guddiga doorashada Galmudug oo lagu wado in dhawaan lagu dhawaaqo sidoo kale wararka ayaa sheegaya in madaxweyne Xaaf loo diiday lacag dhammayd $1 milyan taasi oo ahayd lacag loo fasaxay maamul goboleedyada iyo gaar ahaan gobolka Banaadir dawladda Soomaaliya ayaa aaminsan haddii uu Xaaf loo dhameystiro lacagtani inuu kula dagaalami doono ama uu ka soo horjeedsan doono qorshaha dawladda ee dhismaha waxa jira warar sheegaya inuu dib u bilowday wada xaajoodka u dhaxeeya madaxweyne Xaaf iyo madaxda dawladda Soomaaliya kaasi oo ay wadaan xildhibaano markii hore garwadeen ka ahaa isu soo dhaweynta labada dhinac maleeshiyada hubeysan ee loo yaqaan macawisley ayaa saaka waa barigii hore weerar ku qaaday al-shabaab oo ku sugnaa deegaanka Ceel Cali ee gobolka Hiiraan dagaalka ayaa la sheegay inuu u dhaxeeyay sida la sheegay kooxaha abaabule ee macawisleyda
macawisleyda iyo dagaalyahanada al-shabaab. dagaalka ayaa la tilmaamay inuu yimid kadib markii kooxda macawisleydu ay weerar ku qaadeen aroortii hore dagaalyahanada al-shabaab oo ku sugnaa tuulooyin hoos yimaada deegaanka ceel cali. maxamed cali oo ah taliyaha kooxda macawisleyda ee ku sugan gobolka hiiraan ayaa sheegay in dagaalka ay qaadeen ay kaga dhinteen 2 askari dhinacooda, halka al-shabaabna ay sheegeen inay ka dileen 5 dagaalyahan. ma jirto wax war oo ka soo baxay dhinaca al-shabaab oo ku saabsan sheegashada kooxdani ka tirsan macawisleyda saaka weerarka ku qaaday deegaanka ceel cali ee gobolka hiiraan. kooxda macawisleyda ayaa goobo badan oo ka mid ah dalka waxa ay kula dagaalamaan kooxda al-shabaab. baaritaan ay samaysay hay'adda Amnesty International ayaa lagu ogaaday in bishii Maars ee la soo dhaafay ee diyaaradaha Mareykanku dileen 3 ruux oo ay u beegsadeen inay ka mid yihiin kooxda al-shabaab, balse xaqiiqadu waxay ahayd dadkaasi inay ahaayeen dad beeraley ah oo aan lahaynin wax caddayn oo muujinaya xidhiidh kala dhaxeeya xarakada al-shabaab. nasiib xumo, hay'addu waxay ogaatay in kastoo militariga Mareykanku qiimeyn uu goor dambe helay oo khalad ahayd lagu sheegay in mid ka mid ah ragga la dilay uu ahaa dagaalyahan ka tirsan kooxda al-shabaab, haddana waxay ku guuldarraysteen inay la xidhiidhaan ehelada raggaas si ay u helaan xogo dheeraada. waxaana xusid mudan in dhammaan 3 nin ee lagu dilay duqayntani ay ahaayeen dad shiciba. weerarka ugu foosha xun ee warbixinta lagu faaqiday ayaa ah duqayn 18kii bishii May ee sanadkani ka dhacday tuulada Cadow Dibiile oo qiyaastii 5 kiiloomitir u jirta degmada Afgooye, taasi oo lagu beegsaday gaari Toyota oo ay wateen 3 nin oo beeraley ah oo ka soo laabtay beerahooda isla markaana ku sii jeeday guryahooda. Amnesty waxay sheegtay inay diiwaan gelisay ugu yaraan 6 weerar oo la aaminsan yahay in ciidamada Mareykanku ku beegsadeen dad shiciba oo ayna ku dileen ugu yaraan 17 ruux kuna dhaawaceen 8 kale. daawadayaal intaasi ayaanu ku saafmeereynaa wararkii Warshiil TV. tan iyo intaynu ku kulmi doonno warkan xiga waxaan idinkaga tagaynaa. assalaamu calaykum.